kulan wacan saaxiibayla halkani waa Caasim Media kusoo dhawaada qisadeeni jecel ee taxanaha inoo aheeday mahadi maandeed qaybteedii 18aad maalintaasi hawsha sidii loogu talagalay ayay ku dhamaatay cabsi ilaahna ma jirin wax kalena lagama cabsanaynin waayo waxa ay isleedahay nin ayaad leedahay cid ku dareemaysan ma jirto ninkii inta uu wajiga biyir isaga dhaqay ayuu albaabka guriga ka sii baxay isaga oo suunka xiranaya ayay iska hor yimaadeen ninkii mahad ahaa ee Maryan qabay salaan ay shaki iyo cuqdadi ku jirta ayaa la isa salaamay isaga oo yaaban oo islehsay wax u jiraan ninkani dharka xiranaya ee meesha ka soo baxay muxuu ahaa ayuu guriga galay durbadiina xaaskiisii Maryan ayuu ku yiri war heede ninkani surwaalka sii xiranaya ee guriga ka soo baxay muxuu ahaa ileen sirnaag lagama salgaaro intay qosashay ayay ku tiri alla xabiibi waa wiilkii maalintii waa uu isoo booqday oo suuliga intuu galay ayuu sii baxay wax xoogaa ah ayuu nafisay naftiisana wuxuu ku qanciyay in isaga oo suuliga ka soo baxay oo aanan weli suunka xiran ay kulmeen balse aysan wax kala jirin habeenkaasi wuxuu dib u xasuustay xumaantii uu soo geystay waxaana qalbigiisa ku soo dhacday aayadii quraanka ee dhahaysay ninka xuni gabar xun baa u sugnaatay wuxuu kala soo xasuustay sheekooyinkii Soomaalida ee aheeday ninka gabar xumeeya gabadhiisa la xumeynaya maalintaasi wixii ka dambeeyay mahad waxa ku dhacay shaki iyo waswaas aad u weyn wuxuuna bilaabay in uu dabagalo aadna ugu fiirsado xaaskiisa shakigu waa cudur xun oo nafta iyo noloshaba ciqaabo Maryan lafteeda waa ay dareentay in mahad uu shaki ku dhacay balse rabitaan xoog badan uma hayso mar walba oo ay wax ka dareento canaan ayay dhagaha kaga cuntaa mar walba oo ay firaaqo heshana waxa ay waqti la qaadataa saaxiibkeedii qurbaha ka yimid oo malaha qalbigeeda ayaa jecel u galay maandeeq inkasta oo ay hadda sidii hore dhaanto haddana weli ma aysan ka bogsanin dhaawicii iyo taariikh xumadii uu mahad baday waxay tiri nin walba oo taariikhdeyda maqla wuu ii imaanayaa wuxuuna iga rabaa inuu xumaan igu sameeyo dadkii wanaagsanaa oo dhan waa iga wacdeen intii xumeyd baa isoo raasataa marka aan diidana qaar baa i caayaya oo i dhahayo waxaa tahay waan ogahay maxaad igu diidaysaa aniga waxaad moodaa inaan ahay wado halaq mareen ah mararka qaar anoo keligay ah ayaan ooyaa balse hadalka dadka dhagaha ayaan ka fureystay oo meel kale ayaa ii muuqato la soco qaybta xigta hadduu rabbi raali ka noqdo daawada haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe inoo saar haddii aad hore noola joogtayna muuqaalka iloobin inaad like saarto aadna sii share garayso mahadsanid